qarannimada yada kii qoonsadee ka dareen qabee maabkeenna qoran xuduudaha qayaxan qaar inuu tiriyo inuu kala qoqobo qoondaynayo quusaan ku nidhi kenyaatiyow quusaan ku nidhi inta haanta qabadaha qaar ka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay kay qalooc la tahayow annagu quursi diidnaye kay qalooc la tahayo wayno qori afkii horta kaalahaantaan qabyada ilaa 77 baan maqlaya taakaa ka qabyaha weli lama dhammaystirin miya wari anti kenya bahanani riisadaas haantun qabiyo qori afjeyno laka dhimaatropadaas war haanta qabyadeeda maxaa ku tusay dastuurkiyaaba qabya ehe jaluwa iyo kukuyo iyo kala jiimba quustaan idin nidhi turkaana ma ka reebaysaa war turkiga saaxiib baan nahay jalwa iyo kuukuuna maana madaxweynaha kenya uhura kenyatta la yidhaa jeera ku dardare soo joog ninkii laga waayaa la yidhi soo jiifaa laga helaa uhura kenyatta indha kale ma laho baddeenna u muuqata laakiin waxaan u malaynayaa miduu eed lahaa inay noqoto kaala horta islaantii timaha tabalkaa wadatay weli baddeenna ma ku warwareegaysaa reebo iima reebo weligee runta ka maroorin waraaqo tabal oo ay baddeenna ku qaadato ayay raadinaysaa war timaheedu tabal ma ahan ee waa bililiqo ayay madigay ka hadday ummad qaab ahaan necab quursigo inaan lagu qaldamin qalabka u sito u qastaan nahayo quusaan ku nidhi وليان خورسان كويدي ما نتي خورسان ويسد خمسان كان لقاتما horta markaa nimayo waa nala ku soo qatalmay haddayba habari baddeena dhici rabto warnimayo hadda ka hor nima aabiis xabad ku dhuftay bila kadib nima ilmaadeeriyin dukaankiisuu soo galay waryaa iga buuxu yidhi dukaanka waxba kaa gadan maaye inta laabtay hidda istaago wuxuu yidhi intaas awqasiyada ma waxaa kaa keenaya wadaadkii xijaabtay marka adinka hadda intaanoo xanaaqa ma waxaa idinka keenaya mooshinka baddeena lagu qaadanaya baarlamaanka kenya la horgeeyey saan yeelnaahe baarlamaankeeniya farriin qoraal lagu xidhayo kii kenyana baddeenna ciidan halla keenuu leeyahay khallad ninkii gallo waa khasaara khunfaanin hayse qayaas male waryaaya waxaa la yidhi afxumo nabadna waa kaa wadaa dagaalna wax kaagama tarto horta hadalka quruxsada war unisaasna eraase ya قفما لا يري غيري أكرم waryaa kenya nabad kama rabno markaan dagaalnaana dawa noogu horraysay iyo dadnimee naga daa warkeed wareedhahana dhegaysta war ma haysiine ogow wiil soo bixiyo dagaalyahan buuxo iyo inuu yahay geesi bira ninkii beri loo yaqiin dadkuna uga baqi jireen mar baa nacas beegsadaa bareer ugu dhiiradaa wixiisana boolyadaa bal eega soomaaliyey kenyaatigu wuxuu isbaday war may balleeray langi goofa gubi geed walba ina gubi karo ka aale geed salwiina sakingama gooyasa teesi walaay goro laga galaafood laga gala ka faday kenya fuy aada la aada inaan nahay hal qoys oon qaybsamayn quud wada cunka noo qaasaho dunida qirsane quusaan ku nidhi waranna waxaan leeyahay kenyaatiyo maharagadiyo hadday kaa dhammaatay ugaalida quusaan ku nidhi war kenyaatina ma hawaysan jirine isqa qabsigaynu ka faa'iidaysanaya war anigu waxaan dhihi lahaa anigoo libaax laga baqiyo weliba laayaana anigoo ciddan loolanaba libin ka soo hooya afrikada anoo lii daro shidaya layrkooda haddii aan baryahan liicay oo laxaw isaameeyey kas la ciifay laaciyo hadday badatay laakiintu lafa gobonnima igu jiriyo xog lilaahiya aamiin allah kaa aqbala igaarkaygiyo أنا كيني وحان دي لاي لباح خوي حومودي إنو بسد ياي واللباحي wallahan kenya nin loo dilayn gabdho badan baa noo jooga baagumudaa eegaan u diraynaa mandho waa runta anaa hogaaminaya gabdhaha war kenya intaasaan ku soo koobaya yaana sii badine dhanka dhuusamareebay ka shidhneede qof kasta oo dhagar geystooo dadka dhowrsan qayaana dhibaatuu ka dhaxlaaye wadaadkii ma dhawaaqay dhaleecayn iyo eedna dhan kaleeto ma saaray hadda waxaad noo akhrisay miyaa warqadda sheekh shaakir ee ra-iisul wasaaraha uu ku eedaynayay war-iisul wasaare khayre xaafu waa iska wareejiyey laakiin xulufadii dhuusamareeb inuu iska wareejiyaa looga baahan yahay dooni mayno wallaahi han la yeelayni bilaahi han la yeelayni macnaa saasi leeyahay macnuu saasi dhihi kara hortaba dhagankin ahayti kow haddana widaadiha siinbahan sanadkaas fadwo gooni a siin fadwoodayaan oo dooni maydana lamid ah marka hanyo ee tabarba malan heli karo war naga ticdaa hanyo iyo wax ka xunba ah warnimayo axmed madobe wuxuu yidhi beenta iyo fidnada lagu faafinayo facebook jubbaland waxba looga qaadi maayo marka waxaan soo
xusuustay sida qolada facebookga oo baadil fidinaysa ama koox fadeexada gadiyo filanka shaydaanka adigaa fariid ku ah waran fiirsi loo dhihini faru jeexo beentii haddaan soo fatahayay dhulka oy daruruhu fadhan filiqna soo saaray cirkoo foox ku yaaliyo tegaad faraqa laalaadi inaan foogta geediga u rari filima maysaane hafajicin hadalkayga waa faashiyoon gabay maykoo dhimanayay abwaana hafaja'ina hadalkayga waa faashiyoone warnimaya waxaa la yidhi jacayl 4.5 haddaan lagu qaybsanayn xisbina lagu soo dhisayn isteed goboleed miyay lamaana iscaashaqaa xiriir ku samayn karaan yartaan u dabaaldegoon hilowga ku doortay ay taageerada ha iska lumin dastuurkii guurka iyo muddadii laynoo qabtaiyo maandaydkii qoysaskoo hortaa lagu kala tegiyo xeer hoosaadkana ha jebin ballamihii meerka iyo bajadka arooskanagu golaha sacabku hor yaal ogow xildhibaanaduna kor bay naga eegayaan wakhtigu waa gebangabee waxaad ballan qaaday shalay adoon fulinyuu dhammaan run baan kugu soo xushay axdigii meelha uga dhic sida aad u tilmaantay yartu waa mid wanaagsan oo mataalkii cambihii iyo afkaan soo marin mooye amba waygu mudneed haddaase maanta jeclaatay midkayn baa cuni laaye mii kahaysanayaa maalku doonanayaa waa in aan mulkinaa midigta aan ku dhignaa adna mood iyo nool wixii meeshaa maalku baxaya waa inaadan ma suugin hadda gooraa sidaas la iigu gebyo waa soo xasuustay war maxaa duqda jacayl soo maray war ratiga iska tuuri tagta saak war qarixii ay ku dhinteen mas-uuliyiintii gobolka oo duqu magaalada u horreeyey ilaa hadda akhbaar ma laga keenay waa iyadii baaris baa socota lalahay waryaana soomaaliya dhaganja goraday geela 70 maalin walba laga aamohay madi dhammaystiran gogol laabay bes war ka dhamaadi war mag baaban la sheegay maayarkii laga keenay miyaadnaan maqlinta yaa mas'uul ka ahaa eeran lanki aama olooysa ka shakiisanya leeri lanki mag hormari wala meelkoogii widaayay war nin oday ahaa shirbay wuxuuna yidhi duqii magaalo daahirow in la dilaa ku hoos dahsoon dalku galaan dib u celaa dan kalaa ku hoos dahsoon doorasho dawga soo socdaa waan diidnayaa ku hoos dahsoon war haddii macal doorashadii dahsoon tahay shiribkaan kala dhegayso damac iyo diktatoriya deris noqdee dadow ogow war daljirka dahsoon waa aqaana oo boondheer ku yaal doorasho dadbanaan soo marnaye mid dahsoon maa la keena haddana iyagoo tubti laga xiro meel la tegi waaye tacaddiga dadkeennii hayiyo qaraxa soo taaga oo madaxda lala tiigsadiyo shacabkan taakaysa tawradnimada guud iyo kuwii talada loo dhiibay tacsi waxaan ahayn kama galaan tacajab weeyaan nimayow talaanaanii haayo tawxiidka haynee taqwada iyo tasbiixda waa tirsahaynaa tiirkeen towbada waaye aamiin war baardheere islaam bumbooyin tuuraysa miinooyinna ku rakiban yihiin ayaa maanta askartu xabad ka horgeeyeena la yidhi hadda waa falshidhiyaantii xamarna u wareerisay baardheere ka dhacda maanta war dadkaanu yaabay leeyihiin qofkii aan dhimashada rabina waa dilayaan kii dhimashada rabana waa dilayaan war gabadhaxaa laga hadlaysay rabtaaba loo yeelee war duurkii alla keeno dood unbaad ku jirtaane golayaashii deegaanka soo inaan dooranno ma war adiguna duurkii alla keeno golayaashan deegaanka doortabaad nagu waasheeye madan baad ku qabtaa war dandiisa goraday duubkii la ageedlaasii hooba demkasii dumihii usii eri doona war golayaashii deegaanka dhismahoodu hadda waxay ka socdaan baa layidhi jawhar marka koofi dusha lagaga keena wax kuuma tartee marka dadkii deegaanada maamul lahaa in la dhisaa waa lagama maarmaan hirshabeelle haddii laga sameeyo gola deegaan anuu ayadaan u guuraya wareer war maysiine madaxweynihii kilinka shanaad cabdi maxamed cumar oo xabsi ka baxsan ayaa la soo qabtay warkaaga waxaan u fahmay 28 sano kadib waa markii ugu horreysay oo madaxweyne xabsi ka fakanaya la soo qabtay war kilinka shanaad maxaa u leedaha maamulka soomaaliya sideeda loo bixiyey war faragelintii doorashooyinka ee dowladda lagu eedayn jiray turkiga gaartaa la yidhi erdogan iyo mucaaradkiisa may farageliyeen war feeruha ku jabaynana dhegayso jaaliyadda soomaalida ee turkiga waxay abaabuleen doorasho 2 sanana waxaa madax u ahaa sheekh maxamed maxamuud maxamed safaaradduna waxay leedahay annagaa jaaliyadda u magacaabayna guddoomiye jaaliyaduna waxay leedahay annagaa dooranayna ciddana maamulaysa waryaa safaaraddu ma waxay moodo gobolka banaadir markay jaaliyadda guddoomiyaha u magacaabayso turkigu iyo nin maalin mahmuud moomeelin kasaadi dhiba haysada war waxaa la yidhi laga bartaa laga badshaa waryaa maxmaha ku dheelin waryaahoy waxaa la yidhi kaa bartaa kaa badiya hadda anaa kaa badiyey adiga warkayii qabta war iska gaylidan kenya ma isku saarneen iga tagay ugu istaagin anuu kenya maahi war sharciga ilaalsha غير الله